oo muqdisho reegalkacyood selay reegalkacyood selay xiniyo kil jilbaa wada dhaafeen ba ay aniga naasaha jilbaa igata oogay maxay tahay reegalkacyoodka diintooda asaas ah tahay run ahaantii ma fiicna inaad adigoo gabadha ku hadasho waxyaabaha qaarkood. run ahaantii gabadha Najma Cudoon waxay ku hadashay hadal aad u xun. daawadayaal intaynan u gudagelin, haddii aad ku cusub tahay halkani waa channelka Siis Official. haddii aad ku cusub tahayna subscribe saar, sidoo kale gambalaalka fursi ay ku soo gaadhaan muuqaalada xiisaha badan ee aanu halkan idinku soo gudbino. muuqaalkan aad daawanaysidna like saar, like-tu annaga waxay noo tahay dhiirigelin, iyo sidoo kale inaan muuqaalada idin soo badino. markaa muuqaalka please like noo saar. haddaba daawadayaal, gabadha lagu magacaabo Najma Cudoon oo ah mid ka mid ah gabdhaha ka caanka ah biraha bulshada xiriirka ee internetka dhinaca TikTok iyo Facebook ayaa run ahaantii waxay soo duubtay muuqaal ah wax laga xishoodo amaba ah waxaan lagu hadal. haddaba daawadayaal, markaad tahay qof dumara ma aha wax walba inay afkaaga ka soo baxaan. waxaa loo baahan yahay waxyaabaha afkaaga ka soo baxaya ee aad bulshada u soo tabinayso inaad isxakamayso, maadaama aad tahay qof weyn. haddaba daawadayaal, gabadhan ayaa muuqaal ay soo duubtay waxay ku sheegtay run ahaantii wax aanan halkan idinka sheegi karin, kadib markii wiil ay muuqaal isla duubayeen isaguna sheegay waxaasi la mid ah. haddaba daawadayaal, maanta waxaad sheegayso amaba maanta waxaad ku hadlayso waa la haynayaa, kabacdi berri ka maalin mustaqbalka markaad caruur iyo ubad yeelato, ilaan qof walba waxa sugaya mustaqbal ayaa ubadkaaga la tusayaa. kabacdi waxa la odhanayaa maamadaadu sidaasi ayay ahayd. run ahaantii ilmaha waxa ku dhacaya niyad jab aad u xun, isla mar ahaantaasina wuxuu isweydiinayaa waxay sababtay hooyadii markii ay dhalinyaro lahayd waxaan u samayn jirtay. markaa waxaa loo baahan yahay inaad taxadir fara badan samaysid si aanu beritoole background life-kaaga dambe ama noloshaada mustaqbalka cusub aanay u noqon mid ku xardhan taariikh madow. haddaba daawadayaal, gabadhan oo ah gabadh jilaayada ama baagtirada ayaa ah gabadh inta badan looga bartay waxyaabaha anshaxumo ah, inay mar walba ku hadasho hadallo aan u wanaagsanayn dhagaha, isla mar ahaantaasina daawadayaasha inay tahay run ahaantii gabadh khasiisada oo wax walba iskaga hadasha. taasina ma aha mid loo baahan yahay. waxaa muhiima markaad tahay gabadh inaad afkaaga iyo adinkaaga dhowrto oo aad is ilaaliso si aanay bulshada aad ku daawanaysaa kaaga niyad jabin. haddaba kow ma aha, laba ma aha, saddex ma aha, gabadhan lagu magacaabo Najma Cudoon intaan anigu ku arkay iyadoo ku hadlaysa waxyaabo qaldan, mar walbana way ku hadashaa waxyaabaha qaldan. taasina waa mid wanaagsan iyada ma aha. waxaana loo baahan yahay inay iska joojiso oo ay is ilaaliso, isla markaasina ay ka fikirto, ay ka taxadirto waxyaabaha ay ku hadlayso markay fadhido kamarada horteeda. sidoo kale muuqaalada TikTok ee ay soo duubto waxa muhiim ah in ay iska ilaaliso oo ay is asturto, isla mar ahaantaasina ay mar walba jidhkeeda xijaab iyo waxyaabo kale oo aan ka muuqanahayn ay xidhato, maadaama oo dadka daawanaya ay isugu jiraan dad iskaabula iyo rag iyo dumarba. markaasi waxaa wanaagsan inay qofku soo duubo muuqaal wanaagsan oo waajib ah. run ahaantii intaasina waa iga talo. haddaba daawade, adigu maxaad kula talin lahayd gabadhan inta badan ku hadasho waxyaabaha negatifka ah markay joogto kamarada horteeda? ilaahay ayaa og markaanay kamarada hor joogin, balse waxaan u malaynayaa waxaasi iyo wax ka daran inay ku hadlayso. bal daawade, waxaan rajeynayaa inay iyaduna sidan isu dhaami doonto
adna uga soo ducee qaybta hoose commentiga. Waxaan halkan ugu mahad celinayaa saaxiibada qiimaha badan ee ku xidhan channelkayga, isla mar ahaantaasina maalin walba sida joogtada ay igu xidhan ee muuqaalada aan halkan soo geliyo sida sharafta lagu daawada ee maantana soo gaarsiiyay inaan 70,000 oo qof afka la galno. run ahaantii waa dadaalan gaarnay, idinka ayaan wax idinku nahay, waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. muqdisho reegaalkacyood selay gaalkacyood salixiniyo kil jilbaa wada dhaafeen ba ay aniga naasaha jilbaa iga tag oogay maxay tahay reegaalkacyoodka diintooda asaas ah tahay muqdisho reegaalkacyood selay gaalkacyood salixiniyo kil jilbaa wada dhaafeen ba ay aniga naasaha jilbaa iga tag oogay maxay tahay reegaalkacyoodka diintooda asaas ah tahay muqdisho reegaalkacyood selay gaalkacyood salixiniyo kil jilbaa wada dhaafeen ba ay aniga naasaha jilbaa iga tag oogay maxay tahay reegaalkacyoodka diintooda asaas ah tahay muqdisho reegaalkacyood selay gaalkacyood salixiniyo kil jilbaa wada dhaafeen ba ay aniga naasaha jilbaa iga tag oogay maxay tahay reegaalkacyoodka diintooda asaas ah tahay muqdisho reegaalkacyood selay gaalkacyood salixiniyo kil jilbaa wada dhaafeen ba ay aniga naasaha jilbaa iga tag oogay maxay tahay reegaalkacyoodka diintooda asaas ah tahay muqdisho reegaalkacyood selay gaalkacyood salixiniyo kil jilbaa wada dhaafeen ba ay aniga naasaha jilbaa iga tag oogay maxay tahay reegaalkacyoodka diintooda asaas ah tahay muqdisho reegaalkacyood selay gaalkacyood salixiniyo kil jilbaa wada dhaafeen ba ay aniga naasaha jilbaa iga tag oogay maxay tahay reegaalkacyoodka diintooda asaas ah tahay muqdisho reegaalkacyood selay gaalkacyood salixiniyo kil jilbaa wada dhaafeen ba ay aniga naasaha jilbaa iga tag oogay maxay tahay reegaalkacyoodka diintooda asaas ah tahay muqdisho reegaalkacyood selay gaalkacyood salixiniyo kil jilbaa wada dhaafeen ba ay aniga naasaha jilbaa iga tag oogay maxay tahay reegaalkacyoodka diintooda asaas ah tahay muqdisho reegaalkacyood selay gaalkacyood salixiniyo kil jilbaa wada dhaafeen ba ay aniga naasaha jilbaa iga tag oogay maxay tahay reegaalkacyoodka diintooda asaas ah tahay